kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka channelka Dana Media qodobada ugu door korona waxa ka mid noqonaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo howlgalo lagu bacsanaya al-shabaab ka gobolada Shabeellooyinka ilaahay naxariistana ka waraabiye waxa magaalada Nairobi ku geeriyooday wasiirkii hore wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya General Cabdiraxmaan Maxamuud Cali Bayr ciidanka xoogga dalka oo deegaano ka tirsan Shabeellaha Dhexe kala wareegay nabadiidka al-shabaab howlgal lagu baacsanayo nabadiidka al-shabaab oo laga sameeyay Shabeellaha Dhexe howlgallo ballaaran oo ka dhan maleeshiyaadka ururka al-shabaab ayaa waxa laga sameeyay qaybo kamid ah gobolka Shabeellaha Dhexe iyadoo gacanta lagu dhigay xubno ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab akhbaraadka caalamkana waxa kamid ah booliska Ruushka oo xiray 200 oo qof oo mucaarad ah oo ka arrinsanaya doorashada fadlan daawade haddii aad ku cusub tahay channelka Dana Media subscribe sar like iyo share la wadaag asxaabtaada aan ku bilow qodobka ugu horeeya ilaahay naxariis jannaha ka waraabiye waxa magaalada Nairobi ku geeriyooday wasiirkii hore gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya General Cabdiraxmaan Maxamuud Cali Bayr General Cabdiraxmaan wuxuu jagooyin kala duwan ka soo qabtay ciidanka qaranka Soomaaliyeed sida taliyihii qaybta 6aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed madaxii howlgelinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo waliba military attachega ma u qaybsanaha militariga Soomaaliya ee wadanka Ciraaq iyo Mareykanka madaxa xiriirka arrimaha dibadda ee wasaaradda gaashaandhigga iyo waliba xildhibaan iyo wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxa dowladda federaalka Soomaaliya ee tacsi gaar ah u dirtay ehelkii asxaabtii iyo ummadda Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday General Cabdiraxmaan Cali Bayr marxuum Cabdiraxmaan wuxuu ku dhashay magaalada Laasqoray ee gobolka Sanaag sanadkii 1935 marxuum Cabdiraxmaan wuxuu waxbarashadiisa militariga ku soo qaatay wadamada Masar iyo dawladii hore midowga Soviyeeti ee dalka Ruushka oo 2 jeer waxbarasho militari loogu diray wuxuu kaloo waxbarasho la xidhiidha militariga ku qaatay dalka Mareykanka marxuum Cabdiraxmaan wuxuu qayb ka galay dagaalkii 1964 uu ku dhaawacmay biladna lagu siiyay ilaahay naxariis jannaha ka waraabiye ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa howlgallo qorsheysan ka fuliyay deegaano hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas oo ay ku burburiyeen fariisimo maleeshiyaadka al-shabaab ku lahaayeen deegaanada ay ciidamada howlgalka ka fuliyeen waxa kamid ah Godofaar Xaluushin Diidow Buulax Dhagaxow Buulo Macalin Duduray iyo waliba Banyaale oo ka waadsan degmada Balcad taliya Cabdullaahi Mustafa Cali oo hogaaminayay ciidamada howlgalka ka fuliyay ayaa sheegay in ciidamada ay burburiyeen xarmo badan oo isugu jiray goob ay maleeshiyaadka al-shabaab ka qaadi jireen lacagaha baada ah iyo goob maxkamad beenaad u ahayd oo ay ku dhibaateyn jireen bulshada intii uu socday howlgalka ayaa waxa sidoo kale ciidamada gacanta ku dhigeen tiro maleeshiyaada iyo horjoogayaashooda oo caan ka ahaa deegaanada howlgalka laga sameeyay ee hoos yimaada degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe bulshada ku nool deegaanada howlgalka laga sameeyay aad ay u soo dhaweeyeen ciidamada dawladda iyagoo dareemay naxariista dawladnimo kadib markii saraakiisha ciidamada hogaaminayay ay xog wareysi la yeesheen bulshada halkaasi ku nool howlgal ballaaran oo ka dhan maleeshiyaadka ururka al-shabaab ayaa waxa laga sameeyay qaybo kamid ah gobolka Shabeellaha Dhexe iyadoo gacanta lagu dhigay xubno ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa la sheegay in howlgallo muddo 2 maalmo qaatay ka sameeyeen tuulooyin hoos yimaada degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe saraakiisha hogaaminaysa howlgalka ayaa xaqiijiyay in howlgalku ahaa mid qorsheysan oo sidii loo fuliyay u dhacay guul ay nagu soo dhamaatay howlgalka ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka sameeyay magaalada Jowhar tuulooyinka hoos yimaada ilaa tuulooyin kale oo hoos taga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe howlgalladan oo muddo 2 maalmood qaatay ayaa waxa uu ujeedkeedu ahaa in lagu bacsado araadiga nabadiidka al-shabaab kuwaas oo ka soo hayaamay gobolka Shabeellaha Hoose gulufkii ay ciidanka xoogga dalka qaybahooda kala duwan ku qaadeen gobolkaasi ayaa sababtay inay soo aadaan gobolka Shabeellaha Dhexe ciidamada oo taasi ka jawaabaya ayaa waxay howlgal ku soo qabqabteen dad fara badan oo isugu jira ugu yaraan 10 kamid ah maleeshiyaadka al-shabaab kuwaas oo hadda ku jira gacanta dawladda howlgalladan guuleystay ee ka dhanka khawaarijta ayaa waxa hogaaminayay saraakiil u istaagtay inay ka dulqaadaan shacabka Soomaaliyeed nabadiidka al-shabaab sidoo kale ciidamadu waxay u diyaar garoobeen inay gaaraan goob kasta oo laga soo sheego inay ku sugan yihiin xubno ka tirsan haraadiga nabadiidka naflacaariga maleeshiyaadka arxanlaawayaasha al-shabaab gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa bilihii u dambeeyay waxa ka socday howlgallo lagu baacsanayo nabadiidka al-shabaab oo kadib markii ay tahli waayeen isla markaana looga adkaaday gobolka Shabeellaha Hoose isdhahay gobolka Shabeellaha Dhexe gabaad ka dhigta ayaa howlgallo lagu xaqiijinaya ammaan ka sameeyay deegaanada kala ah Warciise Majabadan Qordheere Bulaganay Kadheeray iyo Kulan
oo dhammaantood ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Taliyaha ururka 7 ee guutada 16aad ciidanka Commandos-ka Danab Dhamme Xasan Maxamed Cismaan oo hogaaminaya howlgalka ayaa sheegay in ujeedku howlgalku ahaa in lagu burburiyo fariismaha nabadiidka ku lahaayeen deegaanadaasi kuwaas oo isugu jiray goob maxkamad beenaad ah iyo meel gabaad u ahayd kana dhibaateynayeen dadka shacabka ah ee ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe. Dhinaca kale taliyaha ayaa shacabka Soomaaliyeed ka codsaday inay la shaqeeyaan ciidamada si looga guuleysto nabadiidka Al-Shabaab. howlgalkan ayaa intii uu socday waxay nabadiidku isku dayeen inay iska caabin balse ciidanka Commandos-ka Danab ee sida gaarka u tababaran ayaa cagta mariyay maleeshiyaadkii qaarna nolosha ku qabtay iyagoo hubeysan. burburinta xarumaha ayaa Al-Shabaab ku ah dhabarjab weyn maadaama ay goobahan ka heli jireen dhaqaale fara badan oo ay ku baadaan dadka shacabka ah. howlgalkan ay sameeyeen ururka 7 ee guutada 16aad ee ciidanka sida gaarka u tababaran ee Commandos-ka Danab ayaa qayb ka ah howlgallada guud ee lagu baacsanayo nabadiidka naflacaariga maleeshiyaadka Al-Shabaab ee ka socda qaybo ka mid ah dalkeena Soomaaliya. haatan aanadna dhinaca akhbaaraadka caalamka. booliska wadanka Ruushka ayaa xiray 100 ruux oo ka shirsanaa hotel isla markaana isaga kala yimid dacallada dalkaasi. kulanka ay ugu diyaar garoobayeen doorashooyinka deegaanada ee dalkaasi. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken ayaa cambaaray xariga lagula kacay 200 oo qof oo ka mid ah mucaaradka Ruushka. qoraal uu ku daabacay bartiisa Twitter-ka ayuu ku sheegay inuu ku baaqayo in la soo afjaro gaboodfallada ka dhanka ah dadka sida madax bannaanka ah codkooda u muujinaya. dadkan ay booliska xireen ayaa waxaa ka mid ah xubno ka tirsan mucaaradka uu ku sugnaa hoteelka ay boolisku u dhaceen. booliska ayaa la sheegay inay xireen dhammaan dadkii ku sugnaa halkaasi. sida laga soo xigtay booliska, sharciyada fayraska corona ayaa la jabiyey waxaana munaasabadda isku soo dabariday urur aan loo baahnayn. guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeeraya warkii aad kala socoteen channelka Dana Media. fadlan daawada haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe sar, like iyo share la wadaag asxaabtaada. sidaas iyo nabadgelyo.